إن أما قبردي أما هوين يدي الله أفضوبته على شاني إن شهوة لقى قوته أو لكوف صدو والله فرح مايو مسامير كلول بو عندك يقوي ويهن وحادو سو كردي سيدان هوريبا u sheegnay afduubka iyo shabakado dadka afduuba markii ugu horeysay Sheekh Maxamed Cabdi Umul oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ee ugu waaweyn dhammaan geyga Soomaalida ayaa ka hadlay afduubka loo geystay gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Kenya waxa uu soo bandhigay xog iyo macluumaad ku aadan taas oo dadka Soomaaliyeed ka qarsan hadaba muuqaalkiisa oo dheer ayuu ku soo bandhigay macluumaadkan inta aanan kula wadaagin muuqaalkiisa iyo sidoo kale xogihii ugu dambeeyay ee afduubka loo geysanaya gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Kenya halka ay marayso xogo iyo macluumaad sir way baahiyeen boolisku taas oo ku aadan shabakadan burcada ay wax afduubato hadaba intaanu guda galin faldan marka hore muuqaalka la garay si uu baaha una gaaro bulshooyinka Soomaaliyeed sidoo kale nagu soo biir oo kamid noqo asxaabteena adigoo channelka subscribe dhahanaya ganbaleelkana u furanaya haddaba daawadayaal markii ugu horeysay Sheekh Maxamed Cabdi Umul oo kamid ah culimada Soomaaliyeed kaas oo in badan ka aamusnaa arinta afduubka ee loo geysanaya gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Kenya ayaa afka furtay waxa uu soo bandhigay xog iyo macluumaad sir oo ku aadan dadka la afduubtay halka la geenaya iyo sababta ka dambayso haddaba iyana wax badan hadalka idinku dheerin aynu isla daawano muuqaalka Sheekh Maxamed Cabdi Umul wayahan waxa aad u soo kordhay sidaan horeyba u sheegnay afduubka iyo shabakado dadka afduuba oo muxuu ahaay madax furasho weydiista mardila siyaabo kala gedisan u dhab haddaan isweydiina asbaabtu maxay tahay way badan tahay laakiin dhowr ka mid aan soo qaadanayna asbaabtu way kala duwan tahay asbaabta waxa ka mid ah asbaab amniya waxa dhacaya dadka qaarkood inta la dafo oo la afduubto raad iyo raq meel ay dhigeen in la waayo qaarna meydkooda meel laga soo helo arinta iyada ah muddo ka hor bay dal ku soo korodhay falalka noocaas qaar ka midana waxa lagu eedayaa oo lagu tuunsan yahay laamaha amniga qaar ka mid ah gaar ahaan dadka mutahamka la tuunsan yahay way ahayd sida nidaam ahaan u degan inay mariyaan maxkamad mariyaan oo dambiga ruuxa lagu soo oogo bedelkeeda waa la qaadayaa waa la dhoominayaa waa la waayayaa ama meydkiisa meel laga soo heli ama marad iyo raqd midna la heli maayo taa way dhacdaa waa mid aad looga qeyliyay oo mas'uuliyiinta iyo gaar ahaan muslimiinta inta badan ku dhacday dhalinyaradooda taa wax badan hadda lagama qaban karo talabaadi wax weeye asbaabta keenta waa asbaab dhaqaale iyo kasab yani wax weeye xoolaa laga raadiyaa afduubka oo iyada lafteeda noocyo ku timaada noocyada waxaa ka mid ah almunaakafaat tijaariya inta badan waxay ka dhacdaa ragga ganacsatada waaweyn ganacsi ama fursad ganacsi baa la isku garbinaya markaasaa la iskhaarijinaya waxaa la isu isticmaalayaa shabakadahan wax dila iyo gaangiskan iyo waxaana la isu isticmaalaya inta badan waxay ka dhacdaa tujaarta waaweyn oo مثلا fursadaha ama kontradaha dawladdu bixiso ama fursado tijaaro oo ganacsi xasad ba dhex maraya way is arkahayaan kadibna inay iskhaarijiyaan baa dhici karaysa iskhaarijinta marka waxa la isu isticmaalayaa si qarsoodi ah way dhacdaa sidaas oo kale dafida noocaas way ku timaadaa oo ujeedo dhaqaale waxaa ka mid ah ujeedooyinka iyo asbaabta keenta waxaa ka mid ah الحصول على فدية مالية روحا انت الله أفضوبه إن مركز لقى قاتو مدح فرشه انت بدنا وحا سمية
bulshada qaybaheeda hoose oo baahan baa sameeyay yacni ruuxa isleeyihiin waxoogaa waxbaad ka helaysaan ama isagii bay afduubayaan ama ilmihiisa ama xaaskiisay afduubayaan meel bay gashanayaan kadibna waxay leeyihiin dadkaagii la hadal waxaa soo bixiya haddii kale waa khaarijinayna waa nidaamkii ninkii la dhihi jiray magafe hawshiisii way jirtaa iyadoo weliba waxay hadda waddankan aada ugu sii xoogaysanaya arrimaha noocaas oo kale markay gaajadu sii daraato waad ogtihiinoo corona siduu u dhacay dhaqaalihii waddanka wax badan baa burburay soo maa weliba dabaqada hoose iyo bulshada qaybaheeda hoose ee fuqarada ah way u sii nugul yihiin hoosu dhaca dhaqaale ee waddanka ku dhacay sidaasoo kale markay dhacdo in badanoo dadka ka mida si ay nolosha u ta'miiniyaan waxaa marka shaydaan ka dhaadhicinayaa wax afduubo shabakaad baa samaysmaya sidaa wax ku raadiya markastoo gaajadu badatana daahiradaasi aad bay u soo baxdaa ayib waxaa kaloo iyadama soo baxdaa sidoo kale marka doorashadu soo dhowdahay oo kale oo dhaqaalo la doonayo in muxuu ahay la sameeyo waxaa asbaabta ka mida keenta oo muxuu ahaay dawaaficda ka mida muxuu ahay munaafasaadka siyaasiga ah oo qolyahan siyaasadda isku hayee siyaasadda ku tartama ayaguna waxay isu dabaraan inay si hoose isu khaarijiyaan way dhacdaa iyadana oo muxuu ahay munaafiska kula tartamaya ama ragga wada isaga kuwooda muhimkaa in si hoose loo khaarijiyo iyadana way dhacdaa asbaab siyaasi wey markaas ayaa keenta macnaha waxaa kaloo asbaabta ka mida oo keenta waxa loo yaqaano asbaab shahwaaniya yacni afduubka waxaa keena asbaab ku saabsan cid ujeeddadiisu ay tahay inuu shahwo guto inta badanna qaybtaa waxay ku dhacdaa dumarka daxiyada inta badan dhibanayaasha ku gala waxaa ka mid dumarka weeyaan macnaha oo waxaa dhacaysa in ama gabadhii ama haweenaydii loo afduubto calashaani in shahwo laga guto oo la kufsado oo la faraxumeeyo iyaduna way dhacday oo markaa laga yaabo in ama sidaa lagu soo daayo markii laga danguto ama ay dhici karayso si aynan sir u bixinin in markaa la khaarijiyo ujeeddadu markaa ujeeddo maaliya maaha dhaqaalana ma aha siyaasadna ma aha laakiin wax weeyaan uun shahwo ka guda waayo ama shahwo ku guda waayo iyaduna way dhacday tobadana dumarkay ku dhacday inahaas waxaa la dhihi karaa waa asbaabta keenta dhaqaale ha noqoto madax furasho ha noqoto siyaasad ha noqoto amni ha noqoto asbaab haddaba xogtan iyo macluumaadkan uu sheegaya sheekh maxamed cabdi umul waxa ay ka dhigan tahay in xaaladdu ay faraha ka baxday dadkan afduubka geysanayana ay yihiin dad diinlaawayaal ah kuwaas oo bar tilmaamaysanaya gabdhaheenna Soomaaliyeed ee sharafta leh haddaba daawadayaal warbixintii aan ka diyaariyay halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa inta aan muuqaalkiisa kala kulmayno sidaa iyo nabadgelyo mahadsanidin